الله وبركاته. maanta waxaan isugu nimid anagoo ku dhan bahweyntii siyaasadeedka ka waxaan halkan maanta u fadhinaa inaan ka qayb qaadano dadkayda ku wacyigelino sida ay u qaadan lahaayeen kaarka diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland. waxaan bulshooyinka reer dibadda u sheegi lahaa inuu kaarku muhiim yahay, inuu kaarku ka turjumayo masiirkooda siyaasadeed, inuu kaarku muhiim u yahay oo yahay qodob historia oo sheegaya inuu muwaadinku kaarka qaato isla markaana kaarkiisa halkii toole uu cidii doonayo ugu codeeyo. waxaan maanta u soconaa waxa weeyaan in dadku ku wacyigelino inay kaarka qaataan. kaarku ma aha inaad hebel u codeynayso kaliya, laakiin wuxuu ka turjumayaa muwaadinimadaada. waxa kale oo ka turjumayaa deegaanka aad ku nooshahay, gobolka aad degan tahay, degmada aad degan tahay. wuxuu kor u qaadayaa samcadda gobolka ama degmada. waayo degmooyinku waxay ku jiraan tartan, degmo kasta wax lagu cabiraa inta qof ee ka codeysa, inta qof ee deegaankaas population ahaan kaarka ka qaata. haddii deegaankaas uu noqdo deegaan fara badan oo nambarka kaarka qaatay ee doorashada galaya ay badato, waxay noqonaysaa meel siyaasi kastaba ku soo hirdo hadhow toolana lagu qiimeeyo degmadaas A ama B ama C waxay noqonayso. marka waxaan ku leeyahay maanta fursad baad haysataa. haddaan shalay isdiiwaan gelin maanta isdiiwaan gelin. hubka ugu muhiimsan ee lagu dagaalamayana waa kaarka qaato. ninka kaarka qaatay unbaa nin codeyn kara, cidna kala saari kara. hadhow toole inaanay noqonin in qofku yidhaahdo kaarkii baan la shalay qaadan uu dhexda farta ka qalino. maanta ayaad fursad haysataa. muddo 15 cisho ah ayay noo soconaysaa gobolka Gabiley oo ugu yar yihiin. haddana saas ay tahay waxaan doonaynaa inaynu gunta dhiisha iskaga dhigno oo aynu xaafadaheena nin walba xaafad buu mas'uul ka yahay ama xaafad buu ka tirsan yahay aynu dadku soo ururino, deetana aynu ku wacyigelino oo aan soo baxayno sidii kaarka ay u qaadan lahaayeen. marka ugu dambeyn waxaan farayaa inaad u diyaar garoodaan maalinta berito hore 8 December